deegaanka masjidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe dhaca ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Deegaankan oo ilaa shalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kaabiga ku hayeen ayaa maanta la isku farasaaray, waxaana halkaasi warar ka soo baxaya ay sheegayaan in uu ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa la socda ciidan kale oo deegaanka ah, siyaasiyiin, xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo hogaaminta ciidanka qayb ka qaadanaya. deegaankan oo la tuhunsanaa in kooxda Al-Shabaab ay fariisinka ugu weyn ku leedahay ayaa ciidanku markii hore waxay ku galeen si nabada, laakiin meel u dhow deegaanka waxaa ka bilowday dagaal culus oo la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan. kooxda Al-Shabaab oo markii hore ka baxay deegaanka ayaa isku dayday inay ciidanka la dagaalamaan, laakiin waxaa halkaasi laga soo warinayaa inuu dhacay dagaal culus oo saacado socday. siyaasiyiin la socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa baraha bulshada waxay ku soo qoreen in kooxda laga saaray goobihii lagu dagaalamay maanta, haddana ciidanku ay weli wadaan howlgalka lagu baacsanayo firxadka maleeshiyaadkii ka tirsanaa Al-Shabaab ee maanta lagula dagaalamay deegaanka masjidka Cali Guduud. saraakiil ciidan, xildhibaano la socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegeen in khasaare xooggan la gaarsiiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaankana loogu tagay maanta. waxayna sheegeen in ciidanku ay weli baacsanayaan, islamarkaana howlgalladani ay yihiin kuwa dalka looga xoreynayo qaybo ka mid ah goobaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. waxaa jira deegaano kale oo hoos yimaada masjidka Cali Guduud kuwaasi oo ciidanku ay si buuxda ula wareegeen, sida ay soo tabinayaan saraakiil iyo sidoo kale wariyaasha la soconaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee maanta gaaray deegaanadaasi. xildhibaano ka tirsan federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabelle, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa dhammaantoodba ku sugan deegaankani, kuwaasi oo ciidanka la socda islamarkaana dhiirigelinaya howlgalka Al-Shabaab looga saarayo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. dhinaca kale, maanta madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa wuxuu gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo maalmihii ugu dambeysay lagu daadgurinayay ciidankii ugu badnaa, kuwaasi oo la doonayo inay u dhaqaaqaan dhinaca degmada qadiimiga ah ee Ceelbuur. madaxtooyada ayaa sheegtay in socdaalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle uu ku tegay ama uu ku booqday aagga hore ee ciidanka inay yihiin kuwo lagu dhiirigelinayo howlgalka iyo sidoo kale dagaal la doonayo in maalmaha soo socda la qaado. xildhibaanada dhowaan Muqdisho ka daadgureeyay ciidankii ugu badnaa oo beesha degta Ceelbuur u badan ayaa sidoo kale halkaa ku sugnaa. sidoo kale waxaa halkaa ku sugan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo halkaa u jooga awaamirsiinta ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka. saraakiisha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadallo dardaaran ah waxay siiyeen ciidankii huwanta ah, kuwaasi oo lagula dardaarmay in la joogo waqtigii la xoreyn lahaa qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud. dhinaca kale, Muuqakore waxaa ka bilowday ugaarsiga Al-Shabaab dadka deegaanka iyo xoogga macawiisleyda oo dhowaan awaamiir uu siiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa ay la sheegay in ay sameynayaan jidgal iyo sidoo kale in Al-Shabaab meeshii lagu sheego inay uga daba tagaan, iyaga oo fulinaya ballanqaadkii madaxweynaha. waa ballanqaadkii gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo u fidiyay inuu lacag siinayo ciddii soo disha saraakiil ka tirsan iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab. laba madax oo la sheegay in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay yihiin, midna uu yahay madow, ayaa goordhow waxaa loo geeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. ciidanka macawiisleyda oo raxan u socda islamarkaana adeegsanaya dadka deegaanka ayaa bilaabay inay dabagal u sameeyaan goobaha ay marayaan ama wadooyinka isticmaalaan Al-Shabaab. muuqaallo WhatsApp lagu baahinayay ayaa muujinayay dadka ku nool Muuqakore oo si aan gabasho lahayn dhagax ugu dilaya laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa si weyn shacabka ugu gubaabiyey in meel kasta Al-Shabaab lagu dilo iyo sidoo kale ciddii loo arko inay la shaqeyso. xeer ka leena bareeg maqnimadiisa asuu kaligiisu socdo yimid gabadhu guursanay aduu ka rabaa, xoolaha cunay aduu ka rabaa, kadib ku dilayaan wiilka uu ku dagaalamana aduu ka rabaa. bal mucjisada anday wiilkaaga quruudii uu dagaalka geliyo rabaa inuu isqarxi qof haanka isaga jiray uu ku qarxiyo ayuu rabaa.
xoolo cunaaduu ka rabaa gabadhaadina meherlaan buu wadanayaa bal mushkiladantay waxaan aragnay maaha waxa socdaa wallaahi waxaan aragna maaha waxaasi waxay u baahan yihiin marka qorshihii lagu dagaalami jiray qorshe ka duwan in lagu dagaalamo sidii loo fikri jiray aragti ka duwan in loo fikiro war dadku ceelay ku diriraan oo soohinay isku qabsadaan oo daaqa isugu yimaadaan shabaab intaan xeer ka leenna meel wal oo wadaag ka nahay ma jirtaa haddaba wax kale idiin sheegaya marka qof aa uga ashtakoonaysaan male haddaad dishiin qof idii haysatana male waadan maxaan ka dhowranaynaa haddaama nina noo qabsanin kuwa khiyaamana laysu haysto adduunkana laysu haystaa bala dilayay midan aakhirana lagu haysan adduunna lagu haysan haddana baadilku la dultaagan maxaa laga dhowranaya waxba laga dhowranaya annaga maanta waxaan idinku nimid inaan dardaaranno adduunka waxa ugu xoog badan aan idiin sheegay maraykanaa gantaal tuura raashiyaa mid xoog badan haysata been revolutionka shacabka ka yimaada ugu xoog badan shacabka folokaanada ka kacda taasaa adduunkao dhan ugu xoog badanno madaxweynaha haddii inta madaafiic lagula garaaco magaaladanu ka tegaya taa kaluu gelaya taa haddii looga daba tago ta kaluu sii gelaya laakiin shacabku hadduu ku kaco hal daqiiqa ma taagnaan karo adduunka waxay ka soo dhacoo dhan fiiriya isbedeladii adduunka ka yimid oo dhan fiiriya shacabaa kacdoon sameyno shidadka kow kii u dambeeya hadda dowladda turkiga Erdogan in la inqilaabaa la damca yaa fashiliyey xitaa quri may wadan shacabka fashiliyey warkiisa quri may wadan shidadka taangis siriska saa soo siinaya baa jidka loo dhex jiiftano 240 qof miya baa ku dhimantay waddankeenu waa badbaaday intiina inaan dhimantaan waddanku la badbaado maxaa tiradii la tahay يا ضربت انتنا فرصه اني كبحد انت كان لبد باده سي نقونيسا مرشده dadka isugu dhawdihiin ayr dadka isugu dhawdihiin abgaal dadka Soomaalida dariska idilana qabiilka Carabka lagama dhowro hadaan xumaan laga sheegay waxaan rabnaa qabaa'ilada aan idin sheegayna ciidamadoodii iyo hubkoodii inaan soo daabulno oo inta keen waxaan rabnaa dagaalka inay la gashaan oo la fogeysaan cadawga oo la naafaysaan ilaa isku cadabaatiin isku ujeedana waatiin wa adinkeeda ka dhashay soo shabaab ma jiraan ya oo in hebel in hebel baabuurta hadda laga sheekeynay kuwa gubay yaa soo heybaan isu micigtaan ya kuwa soo kala kuwa ayaga meesha ka jira inaad dejisaan soo dhaweysaan وهيلب قشان قربها قبطان لا دقال قشان دربي لا تابسيسان ربنا waxaad ku guulaysan kartaa shabaab waad ka kartaa diinta ilaahayna akhrisataan uurkoolna ahaataan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aad u mahadsantiin dadka deriska idila ah waa ku celinaya dadka deriska idila oo qabaa'ilada Soomaaliyeed waxaan rabaa aragti ka duwan aragtidii hore ulku lagu joogi jiray in la isticmaalo maanta waa soo dhaweynayna waana nabadgelyo saas inuu soo qaadaan raba inta saartaan diyaar muuna warkaas inta diyaar muuna aad iyo aad ma